Assalaamu calaykum, waa Yuusuf Shire. Isku soo noqod wanaagsan. Sidii aan hore u ballan qaaday, muuqaalkan maanta waxaan ku soo gudbin doonaa tusaale cad oo aan idinku tusi doono qaabka aad u xareyn karaysaan DAD scholarships. Muuqaalka saddexaad oo DAD aan ka sameynayo weeye bishaan. Labadii muuqaal hore haddaadan daawan YouTube-ka tag halkaa ka soo daawo. Waxaan kaga hadlay development related postgraduate course EBOS iyo Helmut Schmidt oo laba scholarship waaweyn oo ay dowladda Jarmal ku bixiso iyo hay'adda DAD. Marka xaggaas xog badan ba ka helaysa cid xareyn kartay waxaas oo dhan. Kadibna muuqaalkan wuxuu ka anfacayaa goortaad ogaatid inaad xareyn karaysid in kale in qaabka u xareyn lahayd buu muuqaalkan kaa saacidaya. Haddii aadan channelka horey ugu xirnayn soo dhawow fadlan hubi inaad share like iyo subscribe tirahdid gambaleelkan furadiisa ku dhaafay fursadaha halkan sida usbuuclaha soo galiyo haddii aad ka mid tahay asxaabta hore ugu xirnaydna isku soo noqod wanaagsan waa tahay maanta saan horey u ballan qaaday waxaan idin tusi doonaa qaabka labada scholarship loo xareeyo haddii la ku ogol yahay marka waxaan filayaa inaad intii u dhaxaysay muuqaaladan aad akhriseen scholarship si fiican u fahanteen khaasatan listigan oo ah listiga DAD EBOS jaamacadaha iyo kulliyadaha furan luqadda ku baxayaan intay soconayaan iyo deadline-kooda inaad fahanteen inaad linkiyada sii furteen oo jaamacadaha website-yadooda eegteen fikir guud saa uga heshaan ugu yaraan marka linkiyadan ayaan ilaa 3-4 xabo furi doonaa kadibna mid kasta qaabka loo xareynayaan inaan tusi doonaa haddii la haydo inta aanan marka u gelin EBOS iyo Helmut Schmidt labadaba iyo qaabka loo xareynayo waxa muhiim ah inaad fahantid jaamacadaha ayaad ka soo bilaabaysaa processka laakiin waxaan oo dhan waxa kor ka maamulaya oo ay u wada tagi doonaan ultimately markii dadka la kala saaro DAD marka DAD waxay leedahay checklist u gaara oo ay tahay qof kastoo raba in iyaga loo soo gudbiyo final scholarship ka hela inuu waxyaabahan diro waa laga maarmaan waxa ka ah inuu qofku wax ku qoro English ama German midda labaad waa DAD application form ina formkaas ku cadeysid kulliyadaha aad rabtid inaad xareysid choices kasi u kala muhiimsan yihiin halkaan ku qoran yihiin mandatory way waa waajib waxyaabahaas inaad gudbisid oo jaamacadaha u dirtid letter of motivation warqadda motivationka waa laga maarmaan iyadana waa sababta u xareynaysa scholarshipka maximum waxa la 2 pages in long ahaato CV waa inaad soo dirtid CV kastana ma hawaado in isticmaasho formatka Eurobus loo yaqaan isagana waxa way waa inaad tusi doonaa unexplained gaps oo gaabka ka ilaaliso si fiican u sharaxdid in reverse chronological order inaad tii ugu dambaysa ka bilowday kadibna gadaal u socotid date of issue adoo markaas taariikhda raacayna shaqo iyo xirfad waxay tahay aad heshay university certificate shahaadada jaamacadda transcriptka points-ka sharaxayay inuu la socdo professional experience waxa la yiri DAD waxa la siinaya kaliya dadka iyaguna khibrad shaqana leh marka work certificate waa inaad ka soo qaadatid warqad caddeyn inaad soo shaqeysay iyo meesha ka soo shaqeysay warqadihii tixraaca recommendation ka references ka loo yaqaan qofku inuu soo gudbiyo oo meesha hadda ka shaqeysid iyo haddii la ku ogol yahay academic iyo meesha jaamacadaha soo baratay waxa weeye waa in iyaguna la ahaadaan waxa weeye headed paper oo waxa weeye inay original yihiin oo ay leeyihiin taariikhdii iyo shaabadii iyo loogadii institutionka bixiyay proof of English language marka taasna waa mid meesha ku jirto English qofku inuu cadeeyo inuu haddii la ku ogol yahay garanayo marka listigan baa raacaysa goortaan mid kasta aad buuxisid baad haddii la ku ogol yahay waxaad sameynaysaa tick saaraysaa ama aad saad u tustid in aad soo buuxiso qodobkaas marka aan had jaacadii ugu galno laana scholarshipka buuxintiisu intaan oo kaliya raacdid maaha sidoo kale maadaama aad jaacadaha ka soo dalbanaysid oo jaacadaha ka soo bilaabaysid processka jaacaduhuna waxay leeyihiin criteria u gaar marka waa inaad isku keentid labadiiba inaad isku keentid DAD wuxuu rabay iyo jaacaduhu rabitaankooda oo laga yaabo mararka qaybtood iyaguna inay talaabo ama laba talaabo kala kuugu daraan haddaan ka bilowno maadadan global health oo research ah masters waxa akhrinaysa entry requirementska jaamacaddu application deadline kan ma update gareeno waa sanadkii hore laakiin markaas waxay furmaan September koodeeda waxaanu xirmaa November marka tan waxa weeye jaamacad boos ka dalban kartaa laakiin si official waqtigaas u furmaya oo kan EBOS isagu waxa eegaysid waa deadline xaga ku qoran way ma garad kan kale way scholarship kale way midka July 3 koodeeda xirmaya marka kan ilaa September waa si diyaarin kartaa markuu furmana saasa ku xareyn karaysaa sanad dugsiyeedka 2026 aad uga faa'iideysatid marka applicationada marka aad
dad scholarshipkooda xareynaysto ama ebos ha ahaadaan ama helmut schmidt ha ahaadaan laba qaab bay u badan yihiin qaab waxa weeye qolo waxay ku leeyihiin anagu platform baan leenahay portal baan leenahay noo gaara waa wada online halkaas akoon ka samaysanaysaa sida scholarshipyada caalamiga adduunka oo dhan xaggaas ku gud dokumentiyadaada iyo wixii aan ka dalbanay kuwii dad ku weydiiyeen iyo kuwan anagu ku weydiin doonaba xagga noogu soo dir kuwana waa sida jaamacadan waxay ku leeyihiin no please send your complete application package and on email iyo single pdf emailka noogu soo dir baa lagu yidhi wana ka yara fududahay baa moodaa akoon iyo waxba meel ka samaysan maysid dokumentiyadoo dhan baa soo urursanaysaa jaamacadu kaa rabto kuwii daad kaa rabtay wixii dhan baa pdf ka dhigaysa kadibna emailkaasaa u diraysaa full package-ku waa maxay marka application package-ku application form haddii lahay ku ogolay motivation letter cv waxaan hadda aragna academic degree transcript english language proficiency xaggan marka maxaa ku qoran for ebos applicants IELTS band 6 waxay yiraahdaan anagu ma qorno jaamacadaada haddii english ku baxday haddii kale kuwan IELTS bay kaa doonaya jaamacada qayb IELTS doonaya scholarship labaad oo kale waxaa arkaysaa qayb ku dhahaya okay jaamacadaada hadda english kusoo baratay iyada warqad nooga keen laakiin scholarshipkan ebos intooda badan waxay ku dhahayaan no hal jaamacad baan arkay oo aanan rabin iyaduna dadka Soomaaliya waxay yiraahdaan shahaadooyinka Soomaaliya undergraduate kama aqoonsanin marka saas aad u akhrinaysaa marka la leeyahay did jaamacadu kala duwan yihiin waa sidaas hadda IELTS bay kaa doonaysaa jaamacadan work certificate kadibna dokumentiyadaas oo dhan baa inta soo qaadid kuwaana xaggaana aad sidoo kale fiirisid wixii ay isdheer yihiin kusoo dartid baad emailkan haddii lahay ku ogol yahay ay kor ku xuseen ugu diraysaa isagoo single pdf file ah application formka laga hadlayaa marka waa application form ka daad halkan haddaa keli ku tiraahdid wuu kuu furmayaa laakiin anuu hore baan u furay waana buuxiyey daad waagi hore wuxuu ahaa application page weyn oo cagaara oo dheer oo 12 page hadda laakiin way soo koobeen waxaana weeye page qaybtiisa koowaad waa xogtaadii magacaagii emailkaagii meesha ku dhalatay taariikhda dhalatay wadankaaga nationality labaad haddaa leedahay NA baa not applicable male genderkaaga waxaa tahay single haddaad married tahay married bax ka qoraysaa waa edit gareyn kartaan ma garata marka saas oo kale aad wax uga bedeli kartaa zero inaad leedahay awlaad haddii addresskaagii kadibna hometown university jaamacada ka soo baxday maadadaas ka soo dhigatay degreega iyo taariikhda qaadatay iyo grade-ka ka haysatay xagan sidoo kale waxa ka dhigi karaysaa haddii uu jaamacadaada isticmaasho grade-ka 3 ah 3.0 out of 4 baa oran kartaa inaa hadba qaabka transcript-ka ay ugu qoran tahay u geli before taking up the possible direct scholarship kuwan waxaa loogu talagalay qofka aan weli dhammayn oo kale expected date of this degree marka heli sidoo kale shahaadada marka heli sidoo kale marka qofka haduusan weli qalin jabin oo kale halkaan oo kale uu buuxinaya tan oo kale uu iska dhaafaya tan uu buuxinaya page-ka labaadna waxa weeye inaad buuxisay in kale haddaan buuxinayaa weliba aanan apply garayno post kama helin decision weli ma helin xaggaana waa jaamacadii muhiim weeye this is very very critical most important thing of that formkiisa waxa weeye jaamacada waa inaa xaggaa marka gelisid name of the masters haddii ilaahay ku ogol yahay course baa gelinaysaa say u kala horeeyaan first choice-na waa midda kuugu muhiimsan baa gelinaysaa saddexdii kulliyadood baa xagga gelinaysaa oo ebos ka mid ah kadibna waxaa language skills luqadahaaga very good baa tig saaraysaa saan oo kale u saari kartaa tig ma garata you don't have to inaad wax kala weyn uma baahna and document waa word ada caadi u edit karayn karaa practical experience laana khibradda shaqada la iska rabo iyadana hadday hal shaqo tahayna hal shaqo gelinaysaa inta ka shaqaysay meesha ka shaqaysay qayb shaqada noocay ahayd iyo position-ka haysay hadday badan yihiin laba saddex xaba yihiin hadda xaggaas ku buuxinaysaa waxa la yiri waxaad mustaqbalka doonaysaa inaad noqotid haddii ilaahay ku ogol yahay iyagana halkaas ku buuxinaysaa ugu dambeyn xaggana taariikhda ku qoraysaa iyo goobta saasaad documentigaas pdf ugu bedelaysaa marka formkan labada scholarship way isticmaalaan ebosna way isticmaalaan haddii ilaahay ku ogol yahay daadna way isticmaalaan marka hal mar haddaad isaga samaysid uma u baahnid inaad ku koobiyey sidoo jaamacadaha dhan isaga wada diraysaa motivation letterka sidoo kale isagana waxa weeye structure baa jira structure-kana raacaysaa how to write a letter of motivation letter of motivation qodobadaas waa in akhriso documentigan insha Allah waa soo dhigi doonaa waana ka heli kartaa internetka structure-kana raacaysaa waxaa kaloo hayaa warqad aan sameeyey ama internetka aan ka soo helay oo ah ebos oo ah haddii laga google motivation letter marka iyagana waa inala wadaagi doonaa
waxaan soo dhigi doonaa groupka haddii ilaahay idmo telegramka. qodobka saddexaadna waxa weeye current CV iyo Eurobus bay isticmaalaan maadaama uu yahay formka ay daad isticmaasho. Eurobus markaa timaadidna waxa weeye haddaad CV hore lahaydna isagaa keenaysaa kadibna edit ku samaynaysaa, haddii kalena waxaa dhahaysaa create a new CV. create new CV markaa tiraadidna wakaa xogtana xaggaas aqrinaysa, taariikhdii, magacaagii, xog yar adiga kugu saabsan, baasaboorkii, dharrag wixii dhan waa drop down way adaa buuxin karaya. kadib save baa dhahaysaa next, save baa dhahaysaa next. kadibna goortaa ilaa meesha u dambeysa gaartid, template dooratid, download tirahdid, PDF version buu ku siinayaa. PDF kaasa soo degsanaysaa, CV-gaaga waa haysataa. ma adka marka. motivation letter waxaa xiga CV waa aragnay, academic degree-gii de waa haysataa, waa diblomada, shahaadada caadiga, transcript waa haysataa. Englishkana de qofkii IELTS haysta 6 ma badna wuu samayn karaa. haddii kale waxay noqonaysaa jaamacadaha kale oo helmad shumid oo kale inaad raadsatid aan IELTS kaaga baahnayn, shahaado warqad jaamacadaada Englishka ku baxda nooga soo qad kaliya ku dhahaya. shaqo waa inaad meesha ka shaqeyso, warqad ka keensatid iyo references, kadibna aad sidaa ku dirtid. haddaan listiga fiirisidna listiguna waa intaasu isna leeyahay. marka jaamacadan iyo listiga daad ma kala duwana oo isku qaab bay noqdeen. jaamacadda labaad haddaa eegno waxa weeye requirementskii baa eegi kartaa jaamacadda waxyaabay u baahneed qofku inuu kulliyadaha ka soo jeedo. luqadii waxay yidhaahdeen English baan rabnaa. wadamada kaliya Englishka si rasmiga looga hadla kaliya laga dhaafay, dadka kale oo dhan waxay yidhahdeen IELTS ha keenaan. application documentska haddaa fiirisid waa intii aan soo arkaynay badanaa. iyo waxay kala duwan yihiin kaliya documentigana u dheer oo jaamacaddu leedahay. waxa kale laakiin waa waxyaabihii aan aragnay. marka waa kana formka iyagu leeyihiin, waa kana application formka iyagu leeyihiin. horey baanba u furay. formkana buuxinaysaa, documentiyadii kaloo dhan oo xaggan ku jirana waa qaadanaysaa, ama page jaamacadda waa ka eegi karaysaa. inaga halkaan hadda ku arkayna documentiyadaas oo dhanna waa soo ururinaysaa, PDF baa ka dhigaysaa. kadibna goorta formkan buuxisid oo halkaas buuxisid documentiyadiina iyaguna diyaar ku yihiin, baad waxaa u wada diraysaa dhammaantood hadhow jaamacadda u diraysaa. qaabka ugu diraysidna dabcan xaggan ay kusoo qorayaan emailka way. emailkaasaa ugu diraysaa. formkan aad buuxisay iyo listigan oo dabcan wixii ay isdheer yihiin aad soo dhamaystirtay. marka tiimka koowaad waa tiimkaas oo ku dhahaya dabcan soo buuxi documentiyadaas oo dhan PDF usoo bedel, kadibna emailada aan ku siinay noogu soo dir. marka waxaa jira tiim labaad oo ah tiimka jaamacadaha doonaya inaa website-kooda loogu shubo. marka jaamacadan oo kale ka mid ah goorta jaamacadda website-ka tiraahdo badanaa imo how to apply ba waxaa ka helaysaa xogtii, waxaa ka helaysaa haddii ilaahay ku ogol yahay daad documentiyadii la xiriiray. waxaa la qof waa inuu bachelor's degree haysto, experience work related, inuu warqad leeyahay khibrad shaqo oo documentiya keeni karo. IELTS baa marka xaggan ka muuqda. deadline-ku waa 30 September dadka daad xareynaya. documentiyadiina waa kuwaan xaggan ay ku saxeen. waxay yiraahdeen maxaa u horeeya motivation letter, haddii ilaahay ku ogol yahay formkii daad, CV-gii, warqadii iskuulka, waxa weeye certificate wixii dhan, wartiish luqadda wixii dhan ba xagga ku saxan. marka waa akhrinaysaa xaggan listigan iyo dee dabcan listiga daad maxaa ku kala duwan yihiin. kadibna documentiyada markay diyaar ku yihiin baad waxaad samaynaysaa xaggan imanaysaa. waxay application have to be submitted directly to university via the online platformkana furaysaa. meeshaan way meesha marka iyaga wax ugu diri doontid, ma aha email. marka farqigaasaa u dhexeeya jaamacadaha. meeshaan imanaysaa qofkii master xareynaya masterku ku dhufanayaa, kii PhD xareynaya PhD ku dhufayaa. annagu master baan xareynaynay. marka external applicants adigu maadaama qof dibadda ka imanay tahay extern baa dhahaysaa. kadibna meeshaana waxa weeye dabcan hadda waxa weeye German isku day in marka inaad translate-kan oo kala dhahaysaa wixii waxa dhahaysaa English iga dhig. marka Englishka waa kan registration baa dhahaysaa. was diiwaan gelinaysaa sidii scholarship-yadii caadiga ahaa oo arki jirtay. marka email-kaaga gelisid, magacaaga gelisid, email kuu soo dhaco, platformka gudaha u sii gelaysaa. kadibna dee intaas documentiyada baa lagu dhahayaa ku gur meesha, wax kaloo dheeriya ma jiri doonaan. intaas required documentskii baad platformka ku guraysaa. marka haddaan waqti badan hayn akoon ma sii samaysanayna, laakiin wax boqolaal jeer dhalinyaradu arkeen oo ay qofkas uu samayn karayo.
taas waxaa la mid ah iyaduna jaamacadan kale oo iyaduna dhahaysa anaga waxaa noo soo gudbisaan qaab haddii ilaahay ku ogol yahay adoo linkigan isticmaalaya noo soo dira dokumentiyadiina haddaad online application requirementska u tagtidna halkaan ay kuugu saxeen PDF baanu aqbalnaa bay yidhahdeen motivation letter CV-ga adoo Eurobus isticmaalaya school leaving certificate high school ama diploma waxa weeye wixii dhan xaggaan ay kuugu qoreen marka uma baahnid inaad meel kale ka raadisid dad application form haddaa maqashid waa kan documentigan aan caawdan akhrinayay ma garad checklistiguna waa checklistigan halkaan kusoo aragnay isagana inta wada tick saartid baad u diraysaa ka ilaawin isaguna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha lagaa doonayo marka jaacada labaadna waxaanu niri iyada maadaama waqtigeedii la gaaray ma sii geli karno gudaha oo weli lama gaarin oo deadline-ka mar dambe furmayaa haddaad halkan ka eegtid application deadline-ku ma dhowaa August 15 furmaya 15 October buu xirmaya sidaa darteed baanan hadda uga sii geli karin platformka laakiin maalinkuu furmo waxa weeye linkigaas furaysaa dokumentiyadaas oo dhan baa ku upload garaynaysaa aan u nimaano dad Helmut Schmidt isagana xogtiisa si faahfaahsan baa u sharaxay dokumentigana ugu muhiimsan current announcement oo jaamacadihii iyo scholarship-yadii wixii dhan ku qoran yihiin isaguna sida kan oo kale buu wuxuu leeyahay laba qaab jaamacadaha qaybna waxay ku oranayaan goorta website-kooda tagtid waxa sameeyay in adeer qaab online noogu soo gudbi dokumentiyadan ka rabno waa kuwaas hadda daadul Helmut Schmidt oo kale xagana kaga sii dhufanaysaa goorta ku dhufatid xogtii dhan baa xagan ka helaysaa scholarship-ka daad waxa lagu siinayo eligibility xarayn karta documentiska laga doonayo wixii dhan bay ku siinayaan waqtigu xirmayo kadibna portalkana ka xaraynaysaa ma garatay oo ah kana marka goorta xagaa timaadid Helmut Schmidt link u gaaruba leeyahay kana akoonka samaysanaysaa kadibna marka la ilaawin e-boss dokumentigii xagaan ahaa iyo haddii la ku ogol yahay wixii ay jaamacadu ka rabtay iyo wixii daad ka rabeen oo qaab PDF ah baad ku guraysaa portalkaas kaasa iska diiwaan gelinaysaa xagaas ku gudbinaysaa dokumentiyada oo dhan jaamacadan marka waxay kaga fiican tahay haddii la ku ogol yahay kuwa kale English language oo kale waxa la yiri students can submit a letter from their university stating that their official language of instruction was in English marka IELTS kuma weydiinayaan qofkii aan haysan laakiin ka soo baxay jaamacad English ku baxda ha soo gudbiyo warqad jaamacadooda ka timaaday jaamacadda labaad aan daad Helmut Schmidt tusaalaha uga bixinaya waxa weeye waa jaamacadan Duisburg Essen oo iyadana structure-keedu very clear yahay requirement documents-kii laga reebo waa kuwana email ba xaga ku qoran emailkaas waa emailka wax loogu diri doono waxay ku yiraahdeen dokumentiyada dhan inta soo diyaarisid haddii ay ku ogol yahay checklistigii dokumentigii kala formkii daad wixii oo dhan qaab PDF one single PDF ka soo dhig maximum 45 pages ka badan 10 megapixel 10 megabytes ka badan emailkaas noogu soo dir xaga waxa ka muuqda IELTS-ki laakiin waxa la yiri IELTS-ka waa laga dhaafi karaa bachelor's degree hadda ka haysatid English language college or university laakiin waxa la yiri waxa laga rabaa inaad warqad ka keentid dhahaysa qofkaas luqad English wax ku bartay marka daad Helmut Schmidt waxa moodaa inuu dhanka IELTS-ka kaga dabacsan yahay e-boss-ka IELTS bay ku weydiinayaan laakiin daad wuxuu ku leeyahay warqad shaqo jaamacadaada ka keentid in English wax ku baratay waa ka dhaafayna IELTS-ka either ways anu waxa oran lahaa qofkii awooda hag diyaariyo imtixaanka 6 waa la keeni karaa haddii qofku diyaariyo dokumentiyadii ay u baahnaaneen waa kuwa xaga ku qoray kuwa kale dheerigaana waa kuwa daad oo listiga iyo application formka oo isagana inta buuxbuuxi xagan soo dhigay waxaan rajeynayaa intaas inay clear idinka dhigtay stepska talaabooyinka qaadaysan scholarship-ka hore e-boss ilaa 4 jaamacadood baa tusaale ka bixiyay Helmut Schmidt 2 jaamacadood baa tusaale ka bixiyay waa labada type inaad email u diraysid inta dokumentiyada dhan hal PDF ka dhigtid iyo inaad online-kooda ka xareynayso iyagu platformka ay ku siiyaan aad online ahaan ugu gudbinayso dokumentiyadii wixii mugdi idinka jiro marka ila soo wadaaga qaybta commentiga igu soo weydiiya ana waxaan sameyn doonaa insha Allah inaan groupka ku soo upload gareeyo motivation letter sample-keeda CV Eurobus sample-kiisa inkastoo wax fudud yahay bisna insha Allah waan soo dhigi doonaa groupkan ku soo gudbin doonaa iyo formka laftirkiisa aan buuxbuuxiyeen laftirkiisa ma soo dhigo
waxa kale oo aad isleedihiin waan ka booday ama iidan fahmin isoo weydiiya fadlan mar kale haddii aad channelka ku cusub tahay iyo haddii aad ka mid tahay asxaabtii noogu xirnayd ba hubi inaad like iyo share tiraad muuqaalkan lana sii wadaagtid walaalaha is leedahay waa ay ka faa'iidaysan karayaan gambaleelka furo si aysan ku dhaafin fursadaha isbuuclaha ah ee aan halkan soo gelayo fursado badan baa soo socda insha allah marka furmaya sanad dugsiyeedka soo socda ah iyo shirar iyo waxyaabo kale oo iyagana runtii u caawinaya dhalinyarada ilaa kulankan kan xiga waa Yuusuf Shiro oo idin la soo dhaafin. Assalaamu calaykum.